kooxdii Manchester United ahayd tababareedii ay burisay kadib markii uu yiri hadal ka xanaajiyay kuwa kooxda kore ee maamula wuxuu yiri aniga manager ayaan ahay ma ihi head coach managerku waa kaliya midka taktiga iyo kooxda inuu diyaariyo tababarkeed kulli kaliya waa head coach-kuna waa ninka dalbanaya ciyaartooyda iyo sidoo kale dooqiisa ka ciyaarayo oo yacni fargelin ku leh laakiinse asaga wuxuu cambaariyay kuwa ka sarreeya kuwaasoo shaqadooda aan qabsan ayuu yiri ciyaartooy ma soo gadayaan dalabkayga ma weydiinayaan sidoo kale wax fiican ma soo gadaan sidoo kale wuxuu yiri aniga 8 bilood ay hartay haddii laga dhigay coach ha diyaar ahay haddaan laga dhiginna waxaan sugaa intii laga bedelayo kooxdan intaasay ka xanaaqday wayna bedeleen marka waxaa la sugaa hadda in la keeno tababare sidoo kale waxaa ogan isbuucii hore Chelsea inay iska buriso ayadana tababare badan koox ee waaweyn ee hadda tababaraha iska bedelayo dhibaato ayaa haysto Chelsea hadda kor u soo kacirtaa wixir United ay kor u soo kacday laakiin si wuxuu u baahan tahay tababare joogto ah oo head coach ah ma u baahno manager iyo head coachna waa kala duwan yihiin marka waa kala miisaan ee culus yihiin head coach kuwa sida Mourinho iyo kuwa weynka waa kuwaas waxa waaye ayaga wax kasta maamulana marka ninkan waa lagu yaacay Chelsea iyo Unitedna waxay rabaan hadda inay soo gataan tababarahan waa mid Turkish ah midkan waa mid Saudi ah midkan waa mid Talyaani ah kay soo qaad doonaan commenti ku soo qora